waxaan dhihi lahaa horta waynu aragnay dhibaatada Soomaalida lagu hayo dhibaatooyinkan Soomaalida lagu hayana waxay ka timid doorasho iyo dad la doortay madaxa Donald Trump anaga dooranay Soomaalida dad badan oo ka doortay jirtay American korna doortay madaxnimadiisa darteed ay dhibkan ugu weyn u dhacaya doorashada inay wax muhiim tahay horta waxaan filayaa inay dadkii ogaadeen ayna arkayaan saameynta ay yeelan karto qof marka doorato annaga sideedaba Soomaalida St. Cloud waxaan kaloo u baahanahay in aynu helno matalaad annaga naga turjumi karto waxaan ku tartamayaan aniga waxaas waxaan ku tartamayaa in dadkeena ay helaan matalaad ayaga turjumayso matalaad ayada ay soo doorteen hadhowna codkooda iyo baahidooda ka turjumayso markuu tago St. Paul marka waxaan ka codsanaynaa processkan waa processki bilowga ahaa ee taas waxay ii suuro gelinaysaa saan sheegay inaan tartamo xisbiga ayadoo idabad garab taagan yahay inaan tartamay noqonaysa marka insha Allah waxaan dadka ka codsanaynaa inay soo baxaan habeenka Talaadada February 3 6 galabnimo ay imaadaan iskuulka Tech High School waa iskuulka cusub ee Tech High School Southka ku yaalo inay noo imaadaan meeshas nagu doortaan hadaa wax su'aal qabtaan ay la soo xiriir aniga haduu ilaa yiraahdo waxaan sameyn doonaa inaan ku sheegno ku sharaxno processka insha Allah si aad uga qayb qaadato hadaad right rabto laftigeeda noo soo sheeg dhalinyarada ka soo qaadi karta ayaan haynaa oo meesha keeni karo numberka telephone numberkayga waa 320 223 4902 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا إذاعة KZY SLB oo laga dhageysto muujada 105 حل dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah uga hadlayno arrimaha siyaasadda iyo dabcan doorashooyinka iyo xaaladda guud ee magaalada St. Cloud iyo gobolka Minnesota barnaamijkeegan maanta waxaa noogu martay oo nagala qayb qaadanayo Cabdi Dhaysane oo kamid ah dabcan dadka waxgaradka siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada St. Cloud Cabdi Dhaysane mar kale kusoo dhawow إذاعة KZY SLB waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan ku bilaabo dabcan waxa tahay siyaasi horeyna ugu tartamay siyaasadda gobolkan Minnesota iyo tan magaalada St. Cloud ba waxaan la socdaa in u tartamaysa sanadkan mar kale kursiga xildhibaanka marka koobaad nooga waran musharaxnimadaadii aad u tartamaysay xildhibaannimada gobolka Minnesota waa mahadsantahay Axmedow waa faraxsanaynaa mar labaad iyo mar kaleba kulanno studio maanta waxaan sida sheegtayba waxaan tookadii hore laba jeer ba u tartamay kursi siyaasad ee gobolka ee magaalada St. Cloud kii hadda ugu dambeeyay wuxuu ahaa xildhibaan gobol Minnesota haddana mar labaad ayaan kursigaas u tartamayaa waxa tookadii hore waa nalaga guuleystay dabcan tookadan ayadana waan ku tartamaynaa xisbiga waxaan ku tartamaa aniga mar walba xisbiga Democratka sida ogtahay xisbiga Democratka markuu wuxuu leeyahay process si uu qofka u noqdo qofka xisbiga ku metelaya doorashada processkaasna hadda ayuu bilowday waxaan ka hadli doonaa caucus process la dhahaa oo ay dadka ka qayb qaadan karaan si ay u doortaan qofka ay doonayaan inuu xisbiga ku metelo ay doonayaan haduu ilaa yiraahdo waan ka hadlaynaa si fiican marka doorashadaas way socotaa hadda muddaan waday sanadkii hore dhamaadkiisaan ku dhawaaqay waxaan u maleynaa bishii November meelahaas inay ahayd markaan ku dhawaaqayay shaqo badan iyo howlo badan baan gelinay abaabul badan aan sameynay inkastoo campaignkeena hore loo yaqaanay oo tookadii hore aan tartanay haddana shaqo badan ayaan ku jirnaa ayadooba hasaahatee naga aad nooga mashquulisay waxyaalaha communitygeena ku dhacayo iyo dadaalka aan kaga jirnay inaan kaga hortagno inkastoo campaignka aad nooga mashquulisay haddana shaqo badan ayaa campaign ka socoto waxaan ognahay doorashooyinka waxay maraan nidaamyo kala duwan waxaa jira kulamo soo socda oo aad la leedahay bulshada magaalada St. Cloud iyo deegaankan adiga laga dooranayo bal nooga waran heerarka kala duwan ee marayso doorashada bisha November inta aan la gaarin ka hor waa su'aal aad u wanaagsan Axmedow waxay doorashada horta marka hore maraysaa xisbi walbo waxay u baahan yihiin hadda doorashada horle November waa doorashada caadiga marka waxa dhacayso before November la gaarin intaana November la gaarin
in xisbiyada ay is-abaabulaan ay kulmaan. waxaa dhacaysa marka hore annaga Minnesota haddaynu nahay primary marka hore malihin haddii isreereebka hore laysku celin karo primaryga uusan layska dayn karo nidaamkaasay horta Minnesota qaataan. so marka waxaa dhacayso wax la yiraahdo caucus night. caucus night waa habeen ay xaafadaha isku soo baxayaan xisbiga ay taageeraan si gooniya u aadayaan. marka wax la isku milman yahay ma aha. qofkii Democrat ah meel buu aadaa DFL saan dhahno Minnesota. qofkii Republican ahna gooni waa ayagana xilli bay leeyihiin. tan hadda Democrat-kun baan ka hadlayaa aniga maadaama midaas aan xogogaal hoos u ahay. midaas waxay dhici doontaa habeen Tuesday bay dhacdaa. so waxay ku beegan tahay Tuesday night habeenka talaadada 3 bisha February ku beegan tahay. waa talaadan fooday nagu soo hayso. waxaa la isugu imaanayaa iskuulka Tech High School 6 habeenimo markay tahay. meeshaas marka waxaa isugu imaanaya xaafadaho dhan oo districteena ka kooban. districteena saad ogtahay waa district weyn marka oo St. Cloud iyo Waiteback iyo St. Joseph ka kooban way iyo Sinigasta. xaafad kulligeed marka intaas dadka degan oo dhan isku imaanayo waxay sameynayaan precinct xaafadihii laftigeeda si yaryar qaybo yaryar loo kala gooyay oo precinct loo yaqaan. marka precinct walbo meel qol bay galayaan oo xaafadaas dadka degan kaliya isugu imaanayaan. meeshaas waxaa lagu dooran doonaa guddiyo delegates baa lagu dooran doonaa. delegatekaas la doortay haddana waxay isku soo noqon doonaan horta delegate iyo alternate wax la dhaho. so delegateka haddii qof delegateka ka mid ah hadhow la waayo ama imaan waayo qof bedelo. so haddii loogu talagalay xaafadaas in 10 qof oo delegate ay ka soo baxdo 10 kale oo alternate ahna waa la dooranayaa meeshaas lagu dooranaya. so 10kaas delegateka iyo 10kaas alternate-ka baa waxay imaanayaan iyo xaafad walbo intaas oo kale laga soo doortay inta loogu talagalay laga doortay. xaafadahana isku mid ma aha tirada way kala weyn yihiin. xaafadaha soo tiradana way kala badnaan karaan. xaafad baa delegatekeeda 2 iyo 3 kaliya inuu noqdo laga yaabaa. xaafada laga yaabaa 25 inay noqoto say u kala badan yihiin darteed. so way imaanayaan waxaan isku soo noqonaynaa haddana bishan dhexdeeda maalin sabti ah 14 bisha waay hadday ku beegan tahay subaxii hore Tech High School again la isugu soo noqonayaa. meeshaas waay marka meesha dadkii delegate-ka noqday ay ku dooran doonaan ku caleema saari doonaan candidate-ka ama musharaxa ay ayaga doonayaan inuu xisbiga u matalo doorashada. waayahay adiga oo kale xaafadahee laga codeyn kara ama districtgaagu ay tahay gaar ahaan maadaama dadka badan ayaan aqoon magaaladan sida ay district u kala qaybsan tahay waxaa laga yaabaa inay yaqaanaan xaafadaha. marka waa xaafadahee adigu xaafadaha laga dooran karo ee magaalada ee aad jeclaan lahayd maanta inaad fariintada ka gaarsi. aniga kursigii tookadii hore u tartamayay baan horta u tartamayaa. soo dadkii hore iigu codeeyey xaafadahoodii meesha ay degan yihiin hadday weli degan yihiin weli way u codeyn karaan. waxba iskama bedelin xaafadii district aan u tartamayay. district aan u tartamayay marka waxaa waaye waa South St. Cloud Southkeeda waa division wadada division wixii Southkeeda ah webigana dhinacan ka soo jiro dhinaca jaamacadda ka soo jiro Waiteback oo dhan xaafadda magaalada Waiteback oo dhan St. Joseph ayadana South Westgeeda soo dhinaca St. Cloud soo xigto St. Joseph iyo Sinigasta oo dhan intaas aniga liiga dooran karaa intaas liiga codeyn karaa. so dadka delegate-ka marka imaanayo ayaga delegate-ka waxay leeyihiin malahan ayaga sharuudiyadooda way yartahay. dadka delegate-ka ah waxaa loogu talagalay residency loogu talagalay dadka xaafadda degana loogu talagalay oo 18 sanana ka weyn. xitaa Axmedow sharuudda dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay dad badan isku qaldaan. sharuudda xitaa kamid ma aha qofka in uu doorashadooyinka waaweyn codeyn karo. xitaa sharuudda kamid ma aha qof aanan codeyn karin doorashada weyn ayaa ka qayb qaadan karo caucuska. sababtoo ah caucuska waxaa weeye more of inay xaafadda matalaadeeda helaan waaye. maxaad ka wadataa
waxaan ka wadaa macnihii waxaa ognahay dadka doorashada geli kara waa inay ahaadaan muwaadin soo qofka doorashada guud qofka geli karo waa muwaadin waa inuu muwaadin ahaado laakiin kaakasyada shuruucdeeda way ka duwan tahay mid qofka inuu muwaadin Mareykan ahaado qasab ma aha doorashadan Israa'iilkan waxaa loogu talagalay waa meeshii hadda waxaan ka hadlayo in xisbiga qofkii matali laha lagu dooranayo runtii waxyaalo badan oo kale lagu sameeyaa jirto waxaa kale lagu doortaa xisbiga platformkii aad rabtay inay helaan like issue-yada iyo waxyaalaha laga hadlo haddii waxbarasho ahaan lahayd haddii caafimaad ahaan lahayd haddii ay safety-ga public safety-ga ahaan lahayd dadka degan area-da waa meesha ay ku sheegi karaan waxa ay rabaan ayaga xisbiga inuu focus ka saaro maxaa rabtaa xisbiga inuu xooga saaro doorashada 4 sano soo socoto xisbiga uu shaqeynayo for example because waxaan ognahay hadda doorashadii governorkan aan sameyn doonaa sanadkan oo gobolka governorka iyo madaxda ugu waaweyn ee gobolka ayaa la dooran doonaa doorashada hadda soo socota November marka muhiim ay dadka u tahay in ay waxyaalaha ayaga muhiimka u ah inay xisbiga ku hagaan meesha looga hagana marka meeshaan weeye doorashada adiga hadda kursiga aad u tartamaysid marka la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga ma cid baa kula tartamaysa mas'uuliin la ogaa hadda inta la og yahay dad badan horta ma jiro qof baa dhowr jeer damcay ka noqday hadda waxaan maqlayaa haddana 2 maalin ka hor in uu rabo haddana inuu kursiga u tartamo waxaan uga duwannahay annaga waxaa waaye dee muddo badan baan annaga aan kursigan u soo tartannay qofkaasna hadda waxaan ogahay weli qof ku dhawaaqay doorashada xataa inuu tartamayo ma ahan marka sidaas darteed annaga campaign-keena mar walba waa taagan yahay wuxuu diyaar u yahay inuu isdifaaco so ma rabno inaan isdhiganno oo aan iska imaanno dhahna annaga bas aad tartami hayno oo hadhowna qof intuu iska istaago guddiga aad u baahan tahay ama delegateska aad u baahan tahay inaa adigu naftigaaga aad hadday dhacdo in lagugula tartamo aad ku soo baxdid maxaa weeye mise waa sida loo kala cod badan yahay ama delegateka u kala badan yahay sida loo kala badan yahay weeye horta delegateka codayn karo guud xaafadda aniga laga soo doorto ka codayn karo waa 224 tiradan way isbabadashaa hadda 224 qof ayaa ka codayn karo as a delegate xaafadeyda marka la isku wada daro guud ahaan Wade Park, St. Joe, Sinigasta iyo St. Cloud intaba tookadii hore annaga waxaan geynay 150 qof ayaan geynay inay ka qayb qaataan delegate oga noqdaan oo dadkeena u badan ama dadka aniga taageeraan dhaxa dad badan oo waxa ku jiray ajaaniba marka intaas waxay noo suuragelin intaa markay imaadaan in 224 haddii la isaga baahay hataa haddii 224 koo buuxda la helo inaan annaga ka cod badnaano ayaa inoo suuragelaysa markay dadkeena soo bataan waaya kulamo kala duwan baad la leedahay dabcan waqti dheerna hadda waa xigtaa doorashada November laakiin maxaad nala wadaagi kartaa kulamo aad leedahay oo aad leedahay bulshada magaalada ha ka soo qayb galaan ama kuwa aad kaga hadlaysid arrimaha hadda taagan oo kale sida amniga oo kale horta waxyaalo badan baan sameynaa hadda isbuuci hadda waxaan qabtay public safety event dad fara badan oo dadkeena kama soo qayb galin waxaan ugu talagalnay in looga hadlo cabsida hadda dadkeena haysato ay guryaha ku wada jiraan oo ay keenayso faragelinta iyo isqa qabadka ay nagu sameynayaan dawladda federaalka iyo ICE nasiib darro dad fara badan oo dadkeena kama soo qayb galin maalinkaas eventkaas aan qabanayay waxaan uga hadalnay waxyaalaha oo localka la sameyn karo cityga maxay sameyn kartaa si ay u difaacdo xuquuqda dadkeena waan aad baan uga hadli doonaa mar kale waxyaalaha aan kaga sheekaysanay iyo waxa aan isleenahay localka iyo cityga way sameyn kartaa oo aan rabno inaan mayorka iyo dadka cityga aan la wadaagno aan kaga codsanay inay sameeyaan waxaa kaloo dadka ay ka soo qayb gali karaan midaan siba dadka inay nogala soo qayb galaan rabnaa hadduu ilaah yiraahdo 3 bisha sababtoo ah codkoodii hadda waxaa xusid mudan Axmedow aniga haddaanan la soo saarin kaakaska waxay noqoni 2 mid inaan primary aado oo doorasho caadi aado iyo in aan haro
ay noqonaysaa. So muhiimadda ay leedahay in ay dadka soo baxaan waxay noo suuro gelinaysaa inaan ku guulaysano xisbiga caleemasaarkiisa helno, xisbigana taageero doorashada caadiga markaan aadayno. marka waa wax aad muhiim u ah. haddii kale xisbiga soon ku taageerin baa doorasho aadaysa. horeyna way u dhacday, wayna dhici kartaa haddana. waayahay arrimahan hadda waddanka ka socda gaar ahaan ICE waxaan rabaa barnaamijka qaybtiisa dambe aan uga hadalno, laakiin ma saamayn ma ka baqaysaan inay ku samayso kulamada isku soo baxa tusaale ahaan caucus night-ka oo kale inay cabsi geliso? sababtoo taa waxaad arkaysaa magaalada gebi ahaan marka ganacsiga ay noqoto, shirarka ay noqoto, mujtamaca Soomaalida Maraykanka inuu aad hoos ugu dhacay. marka dadkana dabcan waxaa lagula taliyaa baasboorkiina qaata haddaad citizen tihiin, shaqadaada iyo adeegaaga maalin walbana qabso, cidnahaba uu baqin. marka laakiin waxaan dareemi karnaa socodkii bulshadoo dhan inuu aad isu dhib. maxaa odhan lahayd dadka inay ka qayb qaataan doorashooyinkan guud ahaan iyo arrimahan gudiyada ah oo dabcan ah waxa lagu determin garayn doono doorashada? waa su-aal aad u wanaagsan oo aan aad waqti badanna gelinay. aniga laftigayga xisbiga dhowr jeer la soo xiriiray si aan oga hadalno safetyga dadka iyo dadka guryaha hadday joogaan oo groceryga ay doonan laayihiin, adeegii doonan laayihiin, iskuullada aadi laayihiin. waa su-aal meesha ku jirto in may u soo bareeri karaan, meeshaas may imaan karaan. marka laba waxba inaan dadku u sheegaan rabaa. horta meesha amnigeeda aad baa loo sugay. 742 bay ka dhacaysaa. waxaan ogaanay spaceka in uu markii dad kala kiraystaan uu kiraysan yahay inuu private space ahaan loo tixgelinayo. so xisbigana waxay diyaar u yihiin in ay ku difaacaan dadka meesha iskugu imaado, inaysan noqonin dad la ugaarsaday oo meesha lagu ugaarsaday inaysan noqon. taa macnaheeda waxaa weeye iskuolka tag propertigiisa oo dhan inay ICE imaani karin. laakiin waxaynu ognahay ayada laftigeeda Axmedow, aniga maadaama aan bulshadeeda Soomaalida ka mid ah, dhibka socday inay ICE aysan u aabayeelaynin goobaha privateka iyo publica midna aysan u aabayeelaynin inay socotay. waxaan laga been sheegi kara wax jira waaye. way dhici kartaa. laakiin hadda threatka hadda maadaama oo ICE howlaheedii iyo maxaa la dhahaa shaqadii ay wadeen ay xoogaa sidii hore aysan ahayn markii loo eego sidii isbedelkii dambe uu ku dhacay. waxaan filaynaa inay tixgeliyaan, ay ixtiraamaan, aysan meelahaasoo kale iman. number 1. number 2, waxaan kaloo xitaa ka hadlahaynaa maalinka ugu dambeysa oo la isdooranayo sidii inaan sideedii noqoto iyo in wax laga bedelo ayada laftigeeda. horta caucus night-ka aad u gaaban yahay. waa wax saacad ilaa 2 saac ku dhammaado waaye. 6 ay bilaabanaysaa, diiwaangelinka ilaa 6:30 waaye. speejyada dadka musharaxiinta ah waa 30 daqiiqo ugu dambeyso. 7 meesha lagu gaaro dadkii isdiiwaangeliyey baa xaroonayo, delegate noqonayo. delegate processka marka xaafaday ku xiran tahay. waxaa bogi kartaa processkaaga within 15-20 minutes ay ku dhammaan kartaa, waana lagu kala tegi karaa. conventionka xoogaa yara dheer oo sida haddaba sheegay platformka xisbiga iyo qofkii la dooranayay iyo waxyaalo badan resolutionna xitaa looga shaqeeyaa. waxaan rabaa inaan oga faa'iidaysto halkan anoona u mahad celinaya dadkii waagii aadkii taageeray. waxaa jiray markii right away anagana la taageeray dadkeenna intii aniga taageersaneed markii aniga aan soo baxay inay iska tageen. waxaa dhacday resolution baa xitaa naga dambeeyey markii dadka ay soo tageen dhacay oo lagu pressure garaynayo dowladda in ay ceasefire resolutionkii xabad joojintii Gaza in looga hadlayay. marka annaga doorashada markay noo dhamaatay waa ka tagnay. so waxaan rabaa macnaha waxaan xusayaa midaas waxyaalo badan oo muhiim ahna way ku jirtaa. marka waxaa leedahay arrimahan hadda ICE oo kale waa laga hadli karaa. arrimahan ICE oo kale waa laga hadli karaa. waxay noqon kartaa meel aan ku gudbino stateka maxaan ka rabnaa inuu ku ilaaliyo dadka inuu ku ilaaliyo maxaan ka rabnaa ayada laftigeeda waan wax ku gudbin karno. waa qaybta dambe oo barnaamijkan rabaa inaan u gudbo oo aan arrimaha hadda taagan aan iska wareysano. fariintaada ugu dambeysa ee ku aadan doorashadaada iyo habeenka caucus night-ka ee soo socda? waxaan dhihi lahaa horta waynu aragnay dhibaatada Soomaalida lagu hayo.
dhibaatooyinkan Soomaalida lagu hayana waxay ka timid doorasho iyo dad la doortay madaxa. Donald Trump anaga dooranay, Soomaalida dad badan oo ka doortay jirtay, Amerikaanka oo doortay. madaxnimadiisa darteed ay dhibkan ugu weyn u dhacaya. doorashada inay wax muhiim tahay horta waxaan filayaa inay dadkii ogaadeen ayna arkayaan saameynta ay yeelan karto qof marka doorato. annaga sideedaba Soomaalida St Cloud waxaan kaloo u baahanahay in aynu helno matalaad annaga naga turjumi karto. waxaan ku tartamayana aniga waxaan ku tartamayaa inay dadkeena ay helaan matalaad ayaga turjumayso, matalaad ayada ay soo doorteen hadhowna codkooda iyo baahidooda ka turjumayso markuu tago St Paul. marka waxaan ka codsanaynaa processkan waa processki bilowga ahaa ee taas waxay ii suuro gelinaysaa saan sheegay inaan tartamo xisbiga ayadoo i garab taagan yahay inaan tartamay noqonaysa. marka insha Allah waxaan dadka ka codsanaynaa inay soo baxaan habeenka Talaadada February 3 6 galabnimo ay imaadaan iskuulka Tech High School. waa iskuulka cusub ee Tech High School Southka ku yaalo, inay noo imaadaan meeshaas nagu doortaan. hadaa wax su'aal ay qabtaan ay la soo xiriir aniga hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan samayn doonaa inaan ku sheegno ku sharaxno processka insha Allah si aad uga qayb qaadato. haddaad right rabto laftigeeda noo soo sheeg, dhalinyarada dadka soo qaadi karta ayaan haynaa oo meesha keeni karo. numberka telephone numberkayga waa 320 223 4902.